saddexdaa mas'alo markaa masiirkii noloshayda iyo jihadii aan nolosha ku waday way iga bedeshay saddexdaa arrimood waxay ahaayeen maalmaha ka mid ah ayaa la iigu yeedhay wiil dhalinyaro oo aan qiyaastii isle waa dhowr iyo 20 jir oo sariir jiifa aad buu wiilkaasi u xanuunsanayay xumad badanina way haysay dadka markaa ii yeedhay waxay og yihiin cajaladihii aan ka duubay 10ka ahaa baa gaadhay marka waxay iga magansadeen bal inaan ninkan fiiriyo xanuunkiisu wuxuu yahay anigoo markaa isla kaashanaya aqoontaydii maadiga ahayd iyo baxthigii iyo raadraacii aan caalamkan ku sameeyey inankii waan eegay aayado qur'aan aan ku aqriyey wax raada waan ka waayey marka waxaan fiiriyey symptomskii xanuunkiisa markiiba waxaan arkay in inankan xanuunkiisu beerka yahay maadaama waxaan arkay xanuunkan ay cagaarshowga yidhaahdaan inankiioo midabkiisu bedelan yahay jones baa markaa ku dhacay marka waxaan ku idhi wiilkan wax caalamkan inaga qarsoon oo dhibaato u geystay ma jireen xanuunkiisu waxa weeye jones intaan berri shaybaadh u samaynayno wax dufanaha siinina deedna waxay igu yidhaahdeen galabta ayaanu islaam fooxisaa u yeedhnayoo dabadeedna wan ayay soo qaaday waa la qalay badhidii wanka ayaa ilmihii la waraabiyey waa jones baana haya marka waxaan ku yidhi dee niyadkiisu way siman tahay laakiin hadda dee sunbaa waraabiseen beerkuna ma qaadi kara badhiye bal berri aroorta aynu isla gaadhno markaan iridka saa uga baxay inankii wuuma tagay dhiig isla markiiba uu dhintay xanuun bay taasi igu reebtay anigoo taa qaba ayaa maalin dambana waxaa la iigu yeedhay wiil isna dhalinyaro ah da'yar wiilkaas waxaa ku dhacay kaneeco kaneecaduna saa og tihiin waxay burburisaa unugyada cascas ee dhiigga qofku markuu dhiig beelana waa hadraa xumadii kaneecaduna waa u raacday marka qofki inankii isdhaaf buu ku hadlayaa inankii isdhaaf ayuu ku hadlayaa inankiibaa aanu tegey inankii maradaan ka rogay been idiin sheegi maaye sidii karbaash loola dhacayay baa jirhkiisii waxaad moodaa waa inuu jeexjeexmay dhangad bilaa naxariis baa lala dhacay oo inankii oo mucuurtoona oo naftu meelay ka baxda uunla baan u tegey inankii xaaladiisii baan eegay xumadiisii baan ka yaabay deedna isla aroornimadii waxaan ka qaaday shaybaadh waxaan ka helay kaneeco inankii dawadii kaneecadaan siinay alxamdulilah wuu bogsay ta saddexaadna waxay ahayd qof dumar ah oo aan u malaynaya inay mardhal tahay ama laba dhal ayaa la igu yeedhay iyadana qoftaa dumar ah TB baa ku dhacday iyaguse laakiin markaa waxay aaminsan yihiin inuu jindureeyey qoftii baan eegay qur'aan baan ku aqriyey waan gartay markaa inaanu xanuun caalamka inaga qarsoon raad kule aanu ahayn waxaan eegay astaamihii xanuunkeeda maxaan ku idhaha TB-duna dee ciddii aqoon la isma qariso qofku midabkiisu isbedelaa oo haraggeennan caadiga ahee iftiinka liqaya wuu soo celiyaa iftiinka wuu birbirqayaa qofka wejigiisa oo dhididkiisu wuu urayaa wuxuu urayaa aan qofku u fadhiisan karayn marka 12 habeenimo wixii ka dambeeyana qufac baanu la seexanayn qofku intaa waxaa usii dheer xaakadii baabu tufayey qoftaa dumar ah ee TB-da qabta intoo girgira la shiday baa xaarkii dameeraha baa lagu ololiyey markaasaa lagu deday markaasaa markay qayliso la leeyahay ha u joojinina waa jidkii ha u joojinina waa jidkii qoftii oo rafaadsan ayaan u tegey deedna xaaladeedii baan fiiriyey
waxaa ii soo baxday xanuunkeeda inuu xanuun caadi uu yahay oo uu yahay weliba TB. shaybaarkii baan candhuuftii laga qaaday, tijaabadii koowaadba positive bay noqotay. qoftii dumarka ahaydna sidii baa ilaahay ku caafi. marka waan fakeray, waxaan ka fakeray haddii aad xayawaan aada badbaadiso iyo inaad bini aadmi badbaadiso ayamaa kuu roon. waxaan go-aansaday in aan bini aadmiga xun aan ka badbaadin karo haddaan badbaadin karo. dabeedna shaqadii hay-adda waan risaan gariyey. waxaan go-aansaday inaan meel u fadhiisto oo aan dadkii marka xanuunadoodii kala jiheeyo, oo wixii il ah ishu dee waataa ogtihiinoo intaasoo cudur bay keeni kartaa. walcaynu xaqun, caalamkan inaga hooseeyana in badan baa la isku dhici karaa, iyana dhib bay keenayaan. wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruuna wakaana rabuka basiira. halkii baa markaa anigu dhakhtarnimadii xoolaha aan faraha ka qaaday oo aan go-aansaday inaan baabkan